hoolka ku wada sugan waxaa idin leeyahay subax wanaagsan maanta waa maalnimo axad ah taariikhduna ay ku asteysan tahay 29 bisha sii dhammaanaysa ee September ee 2024 maanta tan masraxa ee dugsiga Ubaya ibnu Kacab Kuwait waxaa ka dhici doonto doorasho muddo dhan ay soo socotay oo dhammaan musharaxiintana ee olole ay ku jireen maanta waa maalintii doorashada ee sida tooska aan hoolka aan ugu qabanayno maamulkii dugsiga ayaa xaadir ah munaasabadana si toos ayaana u dahrogi doonaa ugu horeyna inta aanan dahrogin barnaamijkan intuu hawada socdo waxaan qaadan doonaa kelmado maamul iyo macallin ah sidoo kale waxaa idin la hadli doono idin soo hor istaaji doonaa musharaxiinta ee xisbiyada kala duwan ee ka kala socota rabaana inay qabtaan jagada gudoomiyaha midowga ardayda ee sanad dugsiyeedkan ee bilowga ah ee 2024-2025 ugu horeyn inta aanan kelmadaha maamulka iyo macallimiinta iyo qaar ka mid ah musharaxiinta aan siinin xildhibaanada iyo dhammaan ee codeeyaasha ah waxaan ka codsanaynaa in maanta kala ay ku biiriyaan qofka ugu wanaagsan uguna hadalka wanaagsan oo la dhihi karo qofkan hadalkiisa iyo hogaamintiisu waa mid isla qofkaas ayaan rajeeyo doonaa in codka lagu wada shubi doono ugu horeen wax lagu dahrogo waxa ugu qeyrka badan aayadaha quraanka kariimka ee qolka eebe waxaana noo dahrogi doono ardayga lagu magacaabo Rayaan Cabdulqaadir Suleymaan ayaan u yeerayaa waxa leeyahay soo dhawow kuna soo dhawow maslaxa Ubaya ibnu Kacab Kuwait ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قوم مدعي ريان عبد القادر سعيد كان سعود جلاس كتضوات وحان دي سوجيدونا قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم عظيم وصدق الله الرسول الكريم آديات بو أمهاسين كاسنا وحا وهاريان آدانا كغمهد علينا دربو waxaa soo gaartay warqadii xildhibaanada ee doorashada codeynayay guud ahaanna waxa ay gaaraysaa xildhibaanada doorashada codeed doonto waxa la leeyahay 165 xildhibaan ayaa codeed doonto iyadoo ay u codeed doonaan hadba xisbiga u arkaan inuu sanadkan hogaamin karo sanad dugsiyeedkan haduu rabbi raali ka noqdo ugu horeen waxaan jeclahay munaasabada in aad dahrogo waxaana noo dahrogi doono maamulka dugsiga isagoo oo markaas dhiirigelin wanaagsan nasiin doono musharaxiinta iyo codeeyaasha ee xildhibaanada ee codkooda ay ku shubi doonaan hadba qofkay u arkaan hogaamiyaha sanad dugsiyeedkan cidii qaba doonto markaana waxaan u yeeri doonaa maamulkii dugsiga Ustaad Cabdilcasiis Sheekh Cumar Cusubow maamul waxa ku leeyahay soo dhaw kuna soo dhaw maslaxa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد ضمان معلمين تا أرضا بهذا ورباهين تا انتبه وحنكو سلام أمركم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدي بساكي وحان هلكا يسوقني مادني إنه على مسارنا inaynu duubanno in aynu ka soo dhex bixinno ardada qofkii ina hogaamin lahaa maadaama aynu nahay bulsho weyn ka mid ah bulshada Soomaaliyeed maadaama aynu nahay bulsho weynta Soomaaliyeed bulshadii haygi lahayd maadaama goobta aan wada joogna ay tahay goobtii laga haygi lahaa mustaqbalka iyo aayaha jiilka بريتو هوغامين لها دالكينا يدينتينا وحين رجينا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى إنه كبرينا هاوشان إنه سجوني مادني وإنه دوني إنه كدورنا
hogaamiye ama madaxweyne hogaamiya dhammaan ardada inteeda kale waxaan ku biirinayaa oo aan tala ku siinayaa dhammaan ardada qaasatan galaas walba waxaan u malaynayaa wuxuu soo xushay ergo matali doonta isaga galaas walbaba wuxuu soo xushay dad fikirkooda iyo codkooda u matali doona ergadaasna waxay siin doonaan codka cidda galaaskaas uu doonayo waxaan aad idinkugu baraarujinayaa anoo og in maskaxdiinna iyo caqligiinna uu taam yahay inkastoo bini aadam la yahay oo ay caadifad jirto waxaan idinka codsanaynaa in doorashada aad dooranaysaan hoggaankiinna in aynan ku salaynin saaxiibtinimo isjacayl walaalnimo iyo wax la mida inaynu u fiirinno maadaamaynu hoggaan dooranayno hoggaankaasna uu sanadkayna hoggaamin doono waxaynu jecelnahay idinkana codsanaynaa inaad noo doortaan oo aad doorataan hoggaamiye hoggaamin kara ardadan haddii ardada hoggaan fiican ay helaan waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan ay iska bedeli doonaan annaga haddaan maamulkii nahay dhammaan musharaxiintu ay inoo siman yihiin waa ardadeenna waayay dugsi hoose oga soo bilownay dhexe sarena la joogaan waxaan aaminsannahay dhammaantood waynu kuwada kalsoonnahay oo ma jirto qof musharaxiinta ka mid a aynu dhaliil u qabno haddana haddii dad ay mid isugu yimaadaan waa la sii kala mudan yahay marka wax dooranaysa waxaan idinka codsanaynaa yaa ugu sii mudan in xilka uu qabto yaad isleedihiin haddii hoggaanka ardada loo dhiibo ardada wuxuu ka shaqayn karaa isku xirkooda waxaan rajaynaynaa insha allahu in annaga codkeena waxaa haddaan maamul iyo macallimiinnahay ma codaynayno codka adinka ahaya in codka aad siisaan cidda ay mudan tahay intaasaan uga baxayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وحاوها مامولك الدكسيغا سلام راهانتانا ستوسونا ودهروغي فرفوريتانكا الدورشدا ستوسا هادنا وحان بالله دونا doorashadeena ugu horeen waxa uu yeerayaa macallin qiimo badan macallinka macallimiintooda ustaad Ibrahim Xasan Muqtaar ayaa kelmad oo soo dhaweynayaan si doona iyagoo markaas uu ku bogaadi doono musharaxiinta in ay sanadkan ay wax badan ay ka bedeli doonaan qabashada ee jagada gadoomiyaha midowga ardayda awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan halkan aan ugu mahadcelinayaa saakay maamulka dugsiga macallimiinta ardayda musharaxiinta dhammaan waxaan leeyahay waxaan ku salaamayaa wax la isku salaamo waxa ugu qiimaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda asalaam ardayda saakay hoolka weyn ee ubaya aan dooranayno saakay waxaan dooranaynaa ardaygii inoo noqon lahaa hoggaamiye qofka markaad hoggaamiye aad u dooranayso waxaad ku doorataa marka ugu horeeyo ma yahay qofkaasi qof diiniyan wanaagsan waxna ardayda la fahmi kara cabashadoodana maamulka iyo macallimiinta u gudbin kara haddii haa ee jawaabtaada ay noqoto ardaygaasi ku dooro intaas midka labaad ardayga aad ku dooran doonto ama musharaxa saakay inuu noqdo gadoomiyaha aad doonayso cawashadaada asagaad u soo gudbin doontaa maamulka u gudbin doonaa ama macallinka fomastarka waxaan rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa qofka la dooranayo asagana inuu noqdo mid cadaalad fala ardaydana wixii cabashadooda ay u soo gudbistaan uu u gudbiyo maamulka sida caadiga aheedba sida tooska ah inuu u gudbiyo maxaa yeelay haddii ummadi ay meel isugu timaado qof wuxuu noqdaa hoggaamiye hoggaamiyaha marka aad naqanaysidna waxaa lagaa rabaa dadka u cadaalad fal dadka sinnaan dadka waa inay kuu sinnaadaan ardaygan lixaad oo dhigtaa ha dhihin ardaygan foonfoor oo dhigtaana ha dhihin ardayda cabashadooda u gudbi ardayga wuxuu ka caban karaa xagga sabuuradda inuu arki waayo xitaa fowmastarka u gudbinaa wuxuu leeyahay fowmastar oo ciladana ay haysato
ciladii waxaa laga yaabaa foomasterkii macalinka inuu maamulkii uusan u gudbinin. ardaygii gadoomiyaha waa inuu u tagaa uu dhahaa ciladaasaan qabaa, sabuurad araggeeda ay dhibaayo, ilayska macnaha aragtida oo fog aad igu yar, macnaha ma arkay sabuuradii. asagiina waxaa laga yaabaa ardaygaas inuu xishoonayo. ardayga markuu xishoonayana wuxuu u gudbistaa qof wixiisa u gudbin kara. dadka saakay aan dooranayno iyo dadka dooranayo waxaan kula talinayaa inay doortaan qof u qalma kana soo bixi kara wixii loo dirsaday oo ah ardaydaasi sanad ha ahaato 2 sano ha ahaato wixii loo doortay in ardaygaasi uu noqon karo arday u fulin kara. waxaan leeyahay guddiga brotokoolka kaamiramanada daadiyaheena al-ustaad maxamed Sidi Cali Xabiib oo ah mar waliba isku xiraha ardayda macallimiinta iyo maamulka madrasada Ubaya bin Kacab Exquet kun iyo coacher waan kaga mahadcelinaynaa. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulka oo mar waliba ardayda wixii ay jecel yihiin una wanaagsan mar waliba u sameeyo. waxaan idinkaga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida wanaagsan oo quruxda badan oo kelmadiisa ugu dhiirigeliyay musharaxiinta iyo xildhibaanada si ay codkooda ugu biiriyaan cid ay hogaanka u arkaan. sidoo kale waxa ila soo dhaweysaan ustaad Cabdiweli oo kelmad hambalyo iyo dhiirigelin iskugu darsan doono una diri doono musharaxiinta. waxa leeyahay ila soo dhaweeyo ustaadka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا وأخيرا الله جل وعلا أيان أمهد علينا الله سومد مسلمين أن نقدقي مناسبة قيم كان نسكا كيني انت اسكا قدال مسرحا مرتكم إيه ومسرحي أن كصوبر باري oo da'diinoo kale iyo dugsigayga hoose iyo dhaxaba aan ku soo qaatay madrasadan Ubay ibn Kacab ex Kuwait. waana madraso abaal igu leh runtii xaqiiqatan xilli waxbarashada micna saas aan lahayn laguna baraarugsanayn ayaa maamulka madrasadan dhalinyaradii laga badbaadinayay xilligii adkaa ee dalka iyo dagaalada iyo mooryaannimada ee sida lacag la'aanta ah oo wax ku bari jiray aabaheen dhib la'aanta na dhalay ustaad Cumar Cusubow ayaan ka qayb ahay. falilaahi alxamdu wal minna. maalinkaas haddii aan ka qayb ahaan lahayn ardadii madrasadan lagu maamuusay ee fursada loo siiyay inay wax bartaan waxaan ka qayb ahaan lahay runtii maliibaanayaasha aad aragteen ee lagu liibaanay ee 30 sano dowladnimada ka hor micna darada isku dilaysay. abaalkaas ma iloobayi midaa gudi karana ma ahan. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddithna waaye. xaqiiqatan dadka caasimadana ustaad Cumar Cusubow abaal uu ku leeyahay lianna madrasadan uu furay waliba si bilaash ah. war ilmiina mustaqbalkooda aan idin badbaadiyo lacag in kama rabo ee aan wax idin baro. qof wax barta in dhafuran yeelan kara sidaasoo dadka ku soo aroorin jiray. insha Allah ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah ka siiyo. hadda waxbarashada cid lagu tuuga ma jirtee micna yeelatay. falilaahi alxamdu wal minna. raggi soo gaarsiiyay oo soo dhawar adeegay ayuuna kamid yahay. intaas ka gadaal ardayay midnimada in ka muuqato runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. islaamkana waxa uu dhiirigelinayaa mabda al-ijtimaaci dadka in markaasi wada jir ah ay wax u wada qabsadaan. yadullaahi maca aljamaaca. allana waxa uu camalkoodii barakeeyaa dadka sida wada jirka ah wax u wada qabsada ayuu camalkoodii barakeeyaa. koox markay meel isugu timaadane sidaanoo kale waxaa laga rabaa inay doortaan qofkii hogaamin lahaa inay doortaan. rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay idaa kharaja 3 haddii ay meel aadayaan 3 qofood falyu'ammiru axadahum midkood hogaamiyaha ka dhigtaano oo madaxa u noqdo. sidaasuu leeyahay. qofka hogaamiyaha ah isagana waxaa laga rabaa in uu qurxiyo wanaajiyo wixii hogaamiye looga dhigtay iyo mas'uuliyaadka la saaray. hana fududeysanin mas'uuliyadda sideedaba waa wax amaam Allah subhanahu wa ta'ala lagu su'aali doono lianna shaqo lagu raacinayo waaye. shaqadaas lagu raaciyayna waxa waa amaam Allah subhanahu wa ta'ala
waa lagu su'aali doonaa. qofka hogaamiyaha ah waa in uu nidaamiyaa, qurxiyaa camalka kooxda ay u dooratay ee hogaamiyaha ay kaga dhigatay, waa in uu qurxiyaa, uu si wanaagsan uu kaga shaqeeyaa. qofka hogaamiyaha ah sidaas si lamid ah waxaa laga rabaa inuu iska ilaaliyo wax lagu magacaabo al-istibdaad, kaligiis taliyanimo. anigaa dhahay, anaa lay doortay, kaligiis inuu go'aan qaato waa inuu iska ilaaliyaa. kooxdii dooratay waa in uu talo kula noqdaa, waa inuuna markaa diiradda saaraa si wada jir ah qaabkii ardada oo ula shaqeyn lahay. qof walibana wuxuu ku fiican yahay oo u xil saari lahay. ardada qofba waxbuu ku fiican yahay, howlaha loo xil saaranayana saasaa ka mid ah. ku banoonigu ku fiican yahay waa in banooniga cayaaristiisa jaanis loo siiyaa. ku xafladihii inuu wax ka jeediyo ku fiican yahay oo uu hadli og yahay, geesi waaye, in fursadaas isagana la siiyo, looga faa'iideeyo. ku tartamadii ku fiican yahay waa in jaanis loo siiyo. ku isku dabridkii abaabulka ardadu ku fiican yahay waa in markaa jaanis oo u siiyaa. waxaa la dhahaa almakaan almunaasib lishakhsi almunaasib. qof waliba booskoo ku habboon waa in markaa laga cayaarsiiyaa, loo doortaa. qofka nin jeclaysi iyo maxaan ku dhahayo sida maamulka iyo macalimkaba uu ka hadlay iyo walaalkay waaye iyo isku xaafadaan ahnay iyo natiijo fiican laguma keenaayo. rasuulka allah sala allahu calayhi wasalama waxaa u yimid abaadar oo raba in uu markaa hogaamiye noqdo. markaasuu dhahay, abaadarow adigu waxaa tahay qof daciif ahaa tahay, qof iska maskiin ah u ahay abaadar oo iska daciif ah. marka wuxuu dhahay, abaadarow adigu daciifaa tahay, xilkaana waa culus yahay, hoog iyo maxaan ku dhahayo ba iyo shalaayaana ka dambeeya, qofkii waajibkiisa gudan waayo kasoo bixi waayo. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkeega, qofka hogaamiyaha ah waa inuu iska ilaaliyaa qof aan mudnayn, boos uuna mudnayn inuu markaa u magacaabo. kii cayaarti mudnaa cayaarti u magacaabo, kii difaaci ka dheeli ogaay difaaci ka dhig, kii goolhayaha ku fiicnaa goolhaya ka dhig, kii xisaabta ku fiicnaa adiga xisaabta tartanka soo diyaari dheh. qaabkaas wax ku wad insha allah. waadna mahadsantihiin wa shukran lakum. markaana waxaa rabaa inay ila soo dhaweysaan madaxa arrimaha ardayda ahna gudoomiyaha guddiga doorashada ustaad cabdinaasir cumar cusub oo ila soo dhaweeya. kelmadiisa ayuu qaadan doonaa, waxaana rajayn doonaa in uu waqtiga uuna kulaalayo oo noo soo koobo. rabbi hadduu raali ka noqdo aadana kaga mahad celinaynaa. waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. marka hore waxay mahad u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suuro geliyey in hoolkan weyn aan isugu soo baxno, annaga oo diyaar u ah in aan dooranno gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha iskuulka ubaya binu kacab ex-kuwait ee arrimaha ardayda. dhammaan qof walbo codkiisa baxsanayo waxaan ku bogaadinaynaa qofka uu codeynayo in uu ugu codeeyo waxqabad uu ardayda u soo kordhin karo. qofka aad codeynayso waa inuu ka duwnaadaa dadka kale, uu wax dheer yahay. ma ahan codeyntu hebel saaxiib baan nahay, hebel waan isnaqaanaa, hebel derisaan nahay. codeyntu midaa ma aha, ee codeyntu waxay tahay in aan wada dooranno qofkii annagana anfacayo, annaga wanaaggeena ka shaqayn kara, na hogaamin kara, ardayda iyo macallimiinta isku xiri kara ayaa loo baahan yahay in aan wada dooranno. ma raba inaan hadalka ku dheeraado, wixii aan sheegi lahaa hortey baa la sheegay. waadna mahadsantihiin, intaasaa kusoo gabagabeynaa. soo idlaaday kelmadihii maamulka iyo macallimiinta. markaana waxaa idin horkeeni doonaa musharaxiinta si ay mar kale aad u aragtaan adinkoo wada xaadir ah in ay hadli karaan iyo inay hadalka ku wanaagsan yihiin iyo inay maxaa la dhahaa hogaamintuna ay ku wanaagsan yihiin. waxaana rajeyn doonaa oo aan sii doonaa musharax walba 1 daqiiqo ah. haddaba waxaa aragteen iyagoo fasalada idinku imaadeen, haddana guud ahaan ardayda iyo maamulka iyo dhammaan tvga SMS dhammaan wada xaadir ah ayaan maslaxa keeni doonaa. waxaa u yeeri doonaa oo ugu horeeya xisbiga xalane, waxaana hoggaan u ah
oo musharax u ah hanad cabdi axmed waxaa leeyahay ila soo dhaweeya musharaxa xisbiga xalane ahna gudoomiyaha u tartamaya xisbiga. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مقعي قناة عبد محمد كنصعد حسبي حالنا وعليكم سلامة مسلمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومهد أسرناتي الله سبحانه وتعالى وأنتم كل مية وحان رجاء أنا عدكي النسيسان دا عدكي النسيسان وحان قبل دونا من مدى أرديدا يسدح قلق أرديدا. ila soo dhaweeya cabdirashiid axmed maxamed una tartamaya gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xalane aan aragno kelmadiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مي عبد الرشيد أحمد عبد علي أو كسر جراسك فم تري وحسن كأو تتميا قدومي إسكالك حزبي أقصد وحزبي حلنا وحرجنا يعني عد كنسيستان وحي وراها صاحبك به. hagaag waxa uu ahaa cabdirashiid axmed maxamed kana socda xisbiga xalane bal markaana aragno xoghayahooda iyo kelmadiisa waxaa soo dhaweynaya ismaaciil maxamed maxamuud ila soo dhaweeya. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مقعي إسماعيل محمد محمود أنا كسر جلاس تضبط gaar ahaan xisbiga xalane waxaan rajaynayaa inaad dooran doontaan codkiin isi doontaan haddaad doorataan waxaan ka talin doonaa midnimada ardayda iyo nidaamka iskuulka insha Allah waxaan rajaynayaa codkiin isi doontaan. السلام عليكم ورحمة الله haddaad u aragteen xisbigan xalane inay sanadkan hogaami karaan sanad dugsiyeedkan markaan aragno xisbiga ku xiga ee alhuda waxaana sii doonaa gudoomiye una tartamaya maxaa la xilka jagada gudoomiyaha أحمد مختار صالح إلى سودوية. أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مجي أحمد مختار صالح كنصع جلاس فوم 2 وحنا هاي مشرح وترتمي جقدا قدونيين وناخذه waxaan ka socdaa xisbiga alhuda dhamaan ardayda waxaan ka codsanayaa inay ii codeeyaan insha Allah haddaan noo codeysaan waxaan idin ballan qaadi doonaa in aan samayn doono xirfado kuwaasoo naga caawin doona dhan walba waxaan qaban doonaa isku xirka iyo midnimada ardayda waxaan samayn doonaa tartamo hadday noqdaan tartamaha kuwa footballka ah hadday noqdaan tartamo kuwa farshaxanka ah kuwaasoo ciddii ku guuleysta lagu awaarmarin doono insha Allah waxaan rajaynayaa inaan codeysaan. haddii aad u aragteen dhiirigelin oo codka waad ugu shubi kartaan bal aan aragno gudoomiye ku-xigeenkiisa isagana kelmadda uu qaada doono cabdilcasiis ibraahim cadaan ahna xisbiga ee hadda alhuda waana wuxuu u tartamayaa jagada gudoomiye ku-xigeenka aan aragno kelmadiisa. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جو مجا عبدالعزيز إبراهيم أو كسعودو فصل كفهمتو وأنا ترتمي قدومي كحجين كأرضية وعنا قدومي كحجين وعنا بنقاد دونا فرصدوين أو بدن ومعنا رجينينو سيدك بضاع أرضية يحرفضو يمدو تابورة أرضية وين ما سنتين. markaana ila soo dhaweeya xoghayahooda ee xisbiga alhuda waxaana ila soo dhaweysaan axmed cabdullaahi cali isagana kelmadiisu ayuu qaadan doonaa bal aan aragno kelmadiisa. بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قوم مقعيك أحمد عبد الله علي أو كسعود فصل كسيدات أو ترتمي حسبي الهوتا إن شاء الله وحرجي دونا إنان دورتان. waxaa loo baahan yahay qofka waa inuu fagaarka hadalka aad ugu dadaala una cabsanayno markuu dad soo hor istaago haddii kala duudkaana soo aadi doontaa kuwaasna waxay ahaayeen xisbiga alhuda waana kaga mahad celinaynaa markaan aragno xisbiga hadda sanadkan dharka cadeyska noo soo gashteen ee galaaska ee ka socdaan aragno xisbiga cumar ibnu khadaab oo hogaaminaya xuseen cabdullaahi nuur bal aan aragno musharax waxa uu soo jeedi doono kelmadiisa ayaan sii doonaa soo dhawow. إلا والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قوم مجيء حسين عبد الله نور كان صعد فصل كفومان وحنا قدومي وتاينين وقبته حلك وحنا هلكن سلام يا دمان معلمين تي ماملكي أرضيدا بعد سلام كتب وحنا بأنا هنا عدكي النسيسان أنا وحزبين يا عمر بن الخطاب هذا عدكي النسيسان وأقول سنة وحنا أنا قبض دونه وعقبت تياله عدالة سنان كلا دمبين هديتا دانكا كوبادا عكتا ترتمادا نوعية كلا دوان أو قوانا إسكول كوبي بنو كعب هديتا حفلتها أنا وكاشينا معمل كي معلمين تان ما سنتين
waxaan aragnay oo aan dhagaysanay xuseen cabdullaahi nuur ahna gudoomiyaha cumar ibnu khadaab markaan aan aragno gudoomiye ku-xigeenkiisa cali axmed cali ila soo dhaweeya أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مقعي علي محمد علي كان صعد فسك فومن وحاكم ده حزب عمر بن الخطاب بحار وأنا عن عدك سياسية نمبر ميل بو ku fiican yahay markaana ila soo dhaweeya xog hayahooda ee xisbiga Umar ibn Khattab waxaan ila soo dhaweysaan Cabdullaahi Nuur Maxamed iyo kelmadiisa bismillah awlan salaamu alayhi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh anigoo magacayga Cabdullaahi Nuur Maxamed kana socon fasalka 7 waxaan u tartami doonaa xog haye waxaan rajaynayaa in codkiina isiisaan wixii dheeraadna waxaan ii sheegay gudoomiyahayga waana mahadsantiin markaana aad ayaa kaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee isla mar ahaantaana kelmadaha ay u qaateen musharaxiinta durba waxaa la soo diyaarinayaa miiska codeynta xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa inay diyaar garoowaan isla mar ahaantaana u diyaar garoowaan codeyntooda waxay soo arkeen xisbiga ee alhuda ay soo arkeen waxay soo arkeen xisbiga Umar ibn Khattab ay soo arkeen waxay soo arkeen xisbiga xalana ay soo arkeen hadda waxa laga baahan yahay waa in aad taladaada iyo maskaxdaada aad qaadato yaad u codeey lahayd qalinka wax buu qorayaa qalinka maanta yaad ugu hiilin lahayd yaa garab ugu istaagi lahayd hadban waxaan bilaabi doonaa doorashada haddana ha loo diyaar garoobo codeynta doorashada waxaa diyaarsan madaxa arrimaha ardayda ahna gudoomiyaha guddiga doorashada iyo xubnihii la shaqeynayay waa diyaar xildhibaanada ayaan wici doonaa iyaga oo markaas qalinka ay ku dhigi doonaan cidkay hadda u ogolaadaan inuu sanadkan hogaamiyo musharaxiintana waxaa leeyahay waxaan rajeyn doonaa codadkiina insha Allah waan idiin yeeri doonaa oo mar kale ah adinka oo soo dirsan doontaan hogaamiyahayna ama hogaamiyihiina cidii codka idiin tiri lahayd musharaxiinta marka fasalada waxaa codeyn doonta haddii alla raali ka noqdo galaaska form 4 form 3 form 2 form 1 sideedad A sideedad B toddobaad A toddobaad B toddobaad C toddobaad D lixaad A intaas ayaa codeyn doonto haddii rabbi raali ka noqdo taageersan tahay xisbiga xalanine hal tig ayaa siinaysaa haddii aad taageersan tahay xisbiga alhudane tag ayaa saaraysaa haddii ay dhacdo adigoo hal qof ah laba xisbi haddaa u soo codeyso codkaada wuu guwanayaa hal qof aad tahay hal xisbiyaa bis aa u codeynaysaa tusaale magacaygu waa maxamed sidi cali waxaan taageersanahay xisbiga hebel ama xisbiga isa cabdinajiib waa taageersanahay xisbiga isa maxamed yuusufna waa uu joogaa xisbigana ustaad baari waa uu joogaa anigu maxamed ah xisbiga ustaad cabdinajiib haddaa tag siiyo oo ustaad baarina xisbigiisa aad tag siiyo codkaada wuu guunayaa qofkii codkaada ugu tala gashana wuu khasaaraya maryan cabdulqaadir waa ay codeysay حليمة محمد جمعالة واي عوديسي فائسو يحيى علي واي عوديسي وحن ويريا عمر محمد عمر عبد السمد عبد الرحمن محمد حسن محمد حسن حلوانو حاليا سو حاضرة أن أسير قيبت قبلها رحمة محمد جمعالي لول عبد علي خديجة عبد الله علي حسن واو عدي عبد السمد واو عدي رحمة معلن جمعالة واي عدسي لول واي عدسي
khadiija way codeysay محمد حسن واو عذيي هاني حسن أبوكر واي عذيسي صابرين محمود حسن واي عذيسي عمر محمد عمر واو عذي محمد عبد الله سلات واو عذي فاطمة محمد حسين واي عذيسي ياسمين محمد حسن واي عذيسي داهر أبشر محمد واو عذي وحان ويريا حل ديوانة فرحية جمعالي علي فرحية جمعالي علي واي عذيسي منى موسى النور واي عذيسي وحن ويريا ياسمين آذن حسن أحمد محمد عبد الله واو عذي حلوان خالد عبد الله حسن واو عذي وحن ويريا مختار محمد مختار عبد الناصر داهر أحمد سلمى إسماعيل جمعالة واي عذيسي عائشة عبد الله محمد واي عذيسي عبد الله واي عذيسي حلبانة أسماء بارح قلي مستلف أحمد واي عذيسي فونا حزبي الله عذي أنا وأكون واقع دونا إسيادك وسيقود بدونا وحون أقود بدونا ورقة وفرت كسار دونا معلنك إرجع صادر سد المشرحين تا هذه رب العالمين نقضه بسم الله الرحمن الرحيم ونوب الله وتي ورقة أوجو هريا ورقة أوجو هريا gudyada waxay codsanayaan in qof kale oo nala shaqeeyo si markuu macalinka xaq u tago qof kale oo soo bixi ka daba geeyo okay diyaar waa markaas ardaydana say u wada arkaan waxa codsanayaa insaan loo jeediyo warqada ugu horeyso waxa loo cadeeyay xisbiga alhuda حزبك عمر ابن خطاب حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك حالانه دربو حسابنا تاغيردي حزبيده كلا تاغيرايين حزبك حالانه حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك حالانه دربو حسابنا تاغيردي حزبيده حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى
حلنة حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب والله السعودة ويركوا والسعودة حزبك عمر بن الخطاب حزبك حلنة والله صعبت بدنا وجدنا صعب اسكمل بو سعودة حزبك الهدى حزبك حلنة حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك حلنة حزبك عنده الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك عمر بن الخطاب حزبك عمر بن الخطاب حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك حلنة حزبك حلنة حزبك حلنة حزبك حلنة حزبك الهدى حزبك الهدى حزبك عمر بن الخطاب شن iyo 10 warqad ka yar ayaa hartay xisbiga xalane xisbiga alhuda hartay warqadii ugu dambeysay ee hoos u dhacday dambeysay ayaa hartay xisbiga xalane goordhow waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijada waxaa maanta marti ku ah mid ka mid ah ardaydii dugsiga ka aflaxday cabdullaahi cabdishakuur ayaa kelmad sii doona waxaa leeyahay mas-uul soo dhowow bismillaahi raxmaani raxiim awala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ardada qiimaha badan macallimiinta maamulka iskuulka obeyo bino kacab ee kiskuweed waxaan leeyahay arooryo suuban marka xigta waxaan u mahadcelinaa macallimiinta maamulka ee barnaamijkan agaasimay una diyaariyeen ardada qiimaha badan ee dhigata iskuulka obeyo bino kacab in loo yeelo maamul iyo hoggaan wanaagsan aniga waxaan ka mid ahay ardadii ka aflaxday iskuulka obeyo bino kacab ee kiskuweed haddana waxaan ahay guddoomiye ka tirsan guddoomiyaasha
jaamacadda horseed international university waqtigii ani aad joogay iskuulka ma lahayn hogaamiye ardayda midowga iskuulka ubeeyo binu kacab waxaa nasiib u yeelateen inaa yeelatiin hoggaan daacad ah waxaan leeyahay saddexda xisbi inta ku tartamayso xisbigii soo baxa waxaan leeyahay hambalyo xisbiyada kalena waxaan leeyahay qof aanu guuldaraysanin ma guulaysto sidaas awgeed waxaan leeyahay waqti kale iyo masab kale waa isku imaan doonaa waxaan leeyahay adinkana hambalyo ahna gudoomiyaha guddiga doorashada macal cabdinaasir ayaa natiijada ku dhawaaqi doono isaga ayaan soo dhaweey doonaa kan maanta waxaa ku tartamay saddex xisbi oo kale ah xisbiga Umar bin Khadaab xisbiga Xalane iyo xisbiga Al-Huda dhammaantoodna waxaa loo muujiyey taageero aad iyo aad u badan oo dhan walba ka socto maanta inta ay socotay codeynta waxa ay maamulka dugsiga u asteeyeen in ay codeeyaan 165 arday oo ka kala socota fasal walba ee iskuulka kaasoo ka kooban 11 fasaladood halkaasoo fasal walba ay ku qaateen min 15 arday inta codeynta ay socotay waxaa codeeyey 163 qofood waxaanan codeynin 2 arday oo ah Cabdullaahi Maxamed Cali oo dhigta fasalka 6aad iyo Cabdinuur Maxamed Axmed oo dhigta fasalka form 3 guud ahaan intii soo hartay ee 163 arday kale waa ay codeeyeen doorasho qof iyo cod ah ayaana halkan ka dhacday saddexda kaalinka koowaad kaalinka labaad kaalinka saddexaad waxaan ka bilaabaynaa ardayda kaalinka saddexaad ka gashay doorashada maanta waxaa kaalinka saddexaad soo buuxiyey xisbiga Xalane oo keensaday 42 cod waxaan dhammaan ardayda ka codsanaynaa maadaama ay musharaxiin ahaayeen ay tartameen in ay niyad dhis u sameeyaan ay gebi ahaantooda si wada jira ardayda ay ugu sacbiyaan xisbiga Xalane aad ayaad ugu mahadsantihiin mida kaalinka labaad waxaa galay xisbiga Umar bin Khadaab oo keensaday 44 cod kaalinka koowaadna waxaa ku soo baxay oo nasiib u yeeshay in uu noqdo hoggaanka midowga ardayda iskuulka Ubaya bin Kacab Primary and Secondary School Kuwait xisbiga Al-Huda oo halkaas ku keensaday 77 cod waxaan ka rajaynaynaa xisbiga Al-Huda in ay ka soo bixi doonaan xilkii loo igmaday ee loo magacaabay oo ah guddiga midowga ardayda iskuulka Ubaya bin Kacab waxaan ka rajaynaynaa in ay ka shaqayn doonaan ayna haqabtiri doonaan dhammaan baahiyooyinka ardayda ha ahaadaan dhanka waxbarasho ha ahaadaan dhanka ciyaaraha ha ahaadaan dhinac walba oo arday kale uga faa'iideyn karo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
waxaan mar kale idinka codsanaynaa in aan sacab loo wada dhan yahay aan u muujino xisbiga guulaystay ee alhuda markaana musharaxa waxaa soo dhaweynaya cabdirashiid waxaa leeyahay soo dhawow kelmadaada hambaliyada iyo mahadcelintaada ayaan rabnay أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مجاي عبد الرشيد أحمد عبد علي وحمات وهم بلينا يا حزب الهدى وحن رجينا إن نوقفتان وحي هدا نوشيغان إن شاء الله وهذاك قالوا ما سيهاي وحن سيدونا علي محمد ayaa sii doonaa waxaa leeyahay soo dhawow mas-uulow kelmadaada ayaan rabnaa in halkan aa ka soo jeed adoo u mahadceli doono ardaydii oo ama xildhibaanadii maxaa kuu soo codeeyeen una hambaliyo doono xisbiga guulaysta عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مجاي علي محمد علي كان سعد فسك فومن وحني ليه هنبلي aad u mahadsan yahay waxay loo soo dhaweysaan cabdicasiis ibraahim cadaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته anigoo magaca Abdicasiis Ibrahim oo ka socdo xisbiga Alhuda markuu waxa ma daclina Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo dhameeyay si nabad ah si markale waxa ma daclinaya ardaydu seen waqtiga noo galiyeen codkooda noo siiyeen sida macallimiinta waqti noo galiyeen waxa sheega ma aqaan wallahi gamaasintii ismaaciil ila soo dhaweeya si uu markaas kelmadiisa u dhiibto ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مجاي إسماعيل محمد محمود أنا كسعودة جلاس طلبات الود وحاليا همبليو soo dhaweysaan cabdullaahi si markaas uu kelmadiisa hambaliyo iyo kelmadiisa mahadcelin uu u dhiibto أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا هالكان هنبلي أو درينا ولا لهنا haddaba haddii ay iiga badiyaan anaga aan badin waa halkii meel waana kuweyd oo badisay ama iskuulka bay bani kacab oo guul qaaday waana mahadsan yihiin waan u hambalinaynaya barakaatu marka hore ilaa amaad iska leh iyo dhammaan dadka noo codeeyey waa mahadsantihiin waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo magacay xuseen cabdullaahi nuur waxaan halkan hambali u dirayaa dhammaan xisbigii guulaystay ee guusha raacday ee xisbigaas alhuda waxaan leeyahay hambalyo ciddii ay ka wiixatay guushana nimaan guuldareysana ma guulaysto waxaa inoo dhiman sanad dambe insha allah أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا ومي أحمد مختار صالح كنا سعود جلاس فوم 2 marka hore waxaa mahad u sugnaatay alle kaasoo inta nagu soo kulmiyey si qurux badan noogu bilaabo doorashadeena si qurux badan noogu dhameeyey dhammaan ardayda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii codaysan waa mahadsantahay aan codayn waa mahadsanyihiin intaas gubeen waxaan u yeerayaa maamulka dugsiga ubay ibnu kacab ekiskuweed ustaad cabdilcasiis cumar cusowow iyo kelmadda xirxiritaanka ee hadda munaasabadda إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وانسوكو بايا يا آدن أقع عذر دارنا أرددنا قيمها بدن كلولاتي كلالك الدريمي وحاكلو أن كتعزيين ما دام أرددو أي وقت بدن دولك فرديين يوغا وح جميع سيان سمينين انت كدب وحاكلو أمد علينا يا سيدة قيمها بدن نظامك يلا كلا دنبينتا كله هانتاي أي أفرديين ودقي سنايين مرقاتيكنا أونا أوغا هايين doorashada qiimaha badnayd ee maantay aynu qabannay oo ay ku guulaysteen xisbiga lagu magacaabo alhuda intaa kadib maantay waxaa halkan ku baratamay saddexdii xisbi innagu inay wada taliyaan ma doonaynin waxaynu doonaynay in cid ka mid a xisbiyadaasi aynu talada u dhiibanno ardada ayagoo isku duubanna intooda ugu badan waxay talada u dhiibteen xisbiga alhuda waxaan leenahay waan idinkugu hambalyaynaynaa sida qiimaha badan aad u tartanteen una guulaysateen hambalyaan idin leenahay 1 jeerba xisbida kale ee laga guulaystana waxaan leenahay jaanisku maanta bis ma furna
maalmo kaluu furan yahay isa soo adkeeya ololihiina xoojiya waxaan idin rajaynaynaa sanadada dambe in adinka aad guulaysan doontaan intaa kadib waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka oo ugu horeeyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ustaad cabdinaasir ustaad maxamed sayid cali xabeeb oo maalin walba saanoo kale u taagan in ardada baahiyahooda iyo howlo ay u baahan yihiin oo ka xaqabtiro oo xaqiiqiin la'aantiisa maanta hoolka uusan shidmi lahayn dhammaan macallimiinta ayagoo isku duuban waxaan leenahay waad mahadsantihiin intaasaan ku soo gebagabaynaynaa